dhameeyaan khilaafaadka u dhexeeya iyagoo u turaya dadka Soomaaliyeed ee la daaladhacaya xawaaqo cudurkan COVID-19 fatahadaha webiyada daadad ammaan la'aan iyo dhaqaale xumo aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo dhegaysi wanaagsan ومعسيا قدوميه حتى نوحى سولونا هذا الجديد قدوميها قرها شعب مدنة محمد مرسل شعب عبد الرحمن سيو وقنا ورجيو خطبتي دستوري هيدا مدحوينها الجمهورية ده هذه باقي مسألة قدوم سولو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية قدوميها قرعة راكا وزارة حكومة فيدرالك اللبانات اللبادة كلها برنامج الجمهورية الفيدرالية الصومالية مرلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت انا هذا الجديد تيدا وسي بدا قليل أنا قلت الله يا مقع قلها شعبك وحان أضري التعسية تيراني له ضمان أمد الصوماليات ذاتي كوكيريودي عذرك COVID-19 waxaan si gaar ah tacsiyo ugu diraynaa eheladii iyo qaraabadii xildhibaan aadan cali xasan aadan jamhuuriya waxaan dhammaantood ilaah uga baryaynaa jannadiisii fardowsa inuu ka waraabiyo mudane madaxweyne xilka guddoonka baarlamaanka xilliyada ay furmayaan kalfadhiyada waxaa ka mid ah in laga warbixiyo kalfadhigii lasoo dhaafay jihaynta kalfadhiga xilligaasi furmaya meesha uu ku socdo iyo howlaha hor yaalla golaha inuu warbixin ka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii uu dhammaaday kalfadhigii lixaad waxaana xildhibaanada golaha shacabka u jeedinay in fasaxooda bil keliya uu noqdo si howlaha muhiimka u ah doorashooyinka qaranka ee golaha hor yaallo ay ka mid yihiin dhamaystirka afarta xeer ee sharciga doorashooyinka uu farayo sharciga casaabta iyo howlaha kale ee xiriirka la leh doorashada 2020 ay baarlamaanka ugu suurta gasho in waqtigooda lagu dhameeyo fikrad fiican lagama haysanin in dunida iyo gaar ahaan dalkeena uu saameyn doono cudurka COVID-19 oo aan horay loo arag uu saameeyey nolosha qof kasta ee dastuuriga ahayd ee muwaadin kasta ee ku nool dunida uu lahaa furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka tobnaad allah mahadiisa waxaa guul weyn noo ah inaan awood u yeelanay inaan furno kalfadhiga baarlamaanka iyadoo ay dalka ka jiraan duruufo aad u adag ee uu sababay cudurka faafa ee coronaviruska mudane madaxweyne marka la eego xaaladda soo korortay ee faafidda COVID-19 waxay caqabad ku abuurtay howl maalmeedkii joogtada ahayd ee baarlamaanada caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida hay'ado ama ururo kale ayaa dad tiro badan isugu yimaadaan hal meel loogana baahan yahay inay gacan ka geystaan yareynta halista gudbinta COVID-19 iyadoo isla markaa loo ogolaanayo wada shaqaynta lagama maarmaanka ah ee ka dhaxaysa xubnahooda iyo shaqaalaha taageera dowladda iyo shacabka arrimaha doorashooyinka mudane madaxweyne
ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka ee kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya runtii waa guul weyn hase ahaatee waxaa weli harsan arrimo saldhig ah oo ay tahay in sharciga uu qeexo labada guddoon ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay 1 Maarch 2020 magacaabeen guddi wadajir ah oo ku meel gaar ah ee dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka oo ka kooban 17 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha labada gole ee baarlamaanka. waajibaadka shaqo ee guddiga waxaa ka mid ah inay la tashadaan cid walba oo sharciga tayeyntiisa looga maarmin sida guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, wasaaradda arrimaha gudaha, dib u heshiisiinta iyo federaalka, dowlad goboleedyada dalka, hay'adaha amniga, xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan si ay u soo diyaariyaan xeerarka hoos ku xusan ee laga sugayo inay baarlamaanka hor keenaan. xeerka deegaamaynta kuraasta baarlamaanka, xeerka xaqiijinta qoondada haweenka, xeerka doorashada xubnaha labada gole ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya, xeerka xuquuqda matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir. intaa waxaa sii dheer guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil ayaa loo qorsheeyay inay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 27 bisha Juun si ay u soo bandhigto qorshayaasha iyo cayimaadda taariikhda doorashooyinka la qabanayo si waafaqsan qodobka 13 faqradiisa 3 ee sharciga doorashada. waxaan rajaynaynaa in dhammaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo dhaweyn iyo wada shaqayn buuxda siin doonaan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka. mudane madaxweyne صلي على وحيد mudane madaxweyne muddaxileedka golaha ugu harsan oo ay tahay muddo aad u kooban haddana ay indhaha uga hayaan shacabka Soomaaliyeed si uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya u soo saaro go'aano dhaxalgal ah si waafaqsan qodobka 10 ee qodobka 109 ee xarafka e iyo qodobka 109 xarafka ba. xukuumadda waxaan si waafaqsan qodobada aan kor ku soo sheegnay waxaan xukuumadda ka sugaynaa in si dhaqso ah u soo gudbiso xubnaha guddiga adeega garsoorka, xubnaha guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuurka oo muhiimad gaar ah u leh dhinaca doorashooyinka qaranka si baarlamaanka federaalka Soomaaliya u ansixiyo. iyadoo aan ku kalsoonahay in baarlamaanka tobnaad uu gudan doono waajibaadkiisa culus ee laga sugayo geedi socodka dib u eegista dastuurka wuxuu runtii calaamad weyn u yahay dib u dhiska dowladnimadeena Soomaaliyeed uuna noqon doono guul weyn oo dalka gaaray annagana na siin doono taariikh weyn. haddaba waxaan dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka codsanaynaa inaan si adag kalfadhigan uga wada shaqayno si aan himiladaasi uga gungaari lahayn. guddiga la socodka dastuurka wuxuu soo dhamaystiray qabiqoryaalka wax ka beddelka dastuurka ee dhammaan cutubiyada dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. qabiqoraalka wax ka beddelka dastuurka waxaa loo soo bandhigay lagana tashaday shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyadoo guddiyadu ay ka soo ururiyeen talooyin wax ku ool ah
guddiga la socodka ee dastuurka guddiga madax bannaan ee dastuurka waxaan rajaynaynaa inay soo dhammaystiraan la tashiga shacabka iyo dowlad goboleedyada. haddaba mudanayaal waxaa golaha hor yaalla qaraar ku saabsan habraaca dastuurka oo ay soo gudbiyeen guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. maadaama guddigu uu soo dhammaystiray hawlihii dib u eegista ayaa waxaa lagama maarmaan in la ansixiyo qaraarkaasi si loo bilaabo dooda ansixinta wax ka beddelka dastuurka. waxaan amaara u soo jeedinaynaa guddiga la socodka dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka. mudane madaxweyne, si loo yareeyo faafidda COVID-19 kalfadhigan toddobaad wuxuu ka duwan yahay kuwii hore ee lagu qaban jiray dugsiga tababarka booliiska ee lagu martiqaadi jiray bulshada Muqdisho qeybaheeda kala duwan. maamul goboleedyada, beesha caalamka iyo afhayeenada dalalka jaarka ah. kalfadhiga lixaad ee aan soo dhaafnay waxa uu ahaa kalfadhii ugu shaqada badnaa. baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa la ansixiyey shuruuc badan oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka qaranka iyo shuruuc kale oo ay ka mid tahay shuruucdii deen cafinta. waxaana ka mid ah sharciga dhismaha hay'adda dadka naafada ah, heshiiska caalamiga ee naafada, sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa, wax ka beddelka sharciga dakhliga, warbixinta xisaab xirka 2017, hindis sharciyeedka dheelitirka siyaasiyiinta Soomaaliyeed, heshiiska midowga Afrika ee badbaadinta dadka ku barakacay gudaha Afrika, ku noqoshada miisaaniyadda 2019, heshiiska khuseeya ilaalinta hidde-dhaqameedka iyo midka dabiiciga, heshiiska ilaalinta hidde-dhaqameedka aan muuqan, hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga, hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda, miisaaniyadda 2020, hindis sharciyeedka petroolka, heshiiska ka mid noqoshada hay'adaha damaanadda maalgashiga tarafyada badan, wax ka beddelka sharciga furdooyinka, wax ka beddelka sharciga iibka qaranka, dib u eegista sharciga saxaafadda, hindis sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada, hindis sharciyeedka istaatiistikada Soomaaliyeed, hindis sharciyeedka doorashooyinka, hindis sharciyeedka duulista rayidka ee hawada, hindis sharciyeedka tayabarka Soomaaliyeed. waxaan u mahad gaara u jeedinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay diyaarinta xafladan furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka, gaar ahaan habdhowriyaasha baarlamaanka, wasaaradda caafimaadka, taliyaha ciidanka booliska. mudane madaxweyne, xildhibaanada sharafta leh, ugu dambeyn waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si maamuusan ugu codsanaya inuu xilkiisa dastuuriga guto uu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. mudane madaxweyne, ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكفتن ينكفر يا إذا كرهالي كل أنتي بدنا وأفحر أنتي قارن وأفرين مركا وهاللي يرقفكم مركو دع مرات مدعو كوا أفك فرن مهرو ودع مرك مسك جيسين ما كبلتي الحمد لله الحمد لله. قدامك لبض قولي بارلمانك xubnaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo xubnaha baarlamaanka ee golaha shacabka, ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada,
gudoomiyaha maxkamadda sare xeeryaalaha qaranka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan gudoomiyaha gobolka banaadir taliyayaasha ciidanka qalabka sida gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka ee galmudug gudoomiyaha ee baarlamaanka dowlad goboleedka ee hirshabelle bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 6 qaran kale qabiilku ma aha wax qaran dhisa waa ognahay qabiilku waa wax qaran dumiya oo waa u soo taagnin waana soo aragnay haddii qof aad qabiil ku doonato ama qabiil aad ku diido si aan ku gaarinaa dowlad hufan oo caalamka dowladahooda la tartama dhanka waxaan xisbiyada doonaya inay ka qayb qaataan doorashadan aan kula dardaarmaya inay uga qayb qaataan si sharciga waafaqsan ayna iska ilaaliyaan wixii dhaawici kara nabadgelyada shacabka iyo xasiloonida guud mudanayaal iyo marwooyin waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsanno hala kala aragtid wanaado laakiin in la is ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeenna ahaa ama ahayd in la helo Soomaaliya oo nabad Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qarannimo taas inay noo ahaato astaan qaran weeye mudanayaal iyo marwooyin marka aanay Soomaaliya oo nabad ah macnaheedu waxay tahay Soomaaliya oo barwaaqo ah Soomaaliya oo u tagna kheyraadkeedii haddii ay tahay waxa la yiraahdo economy kheyraadka badda ku jira kalluun iyo shidaal iyo hadday tahay kheyraadka waa nabad la helo wey haddii nabad la helo oo ay daba socotaan nabaddu inaan u tagno kheyraadkeena bariga oo hadday tahay macdano kale hadday tahay beero iyo hadday tahay xoolo Soomaaliya waa dal qani ah laakiin shuruudu waxay tahay in la helo nabad iyo dawlad ku hagta nabadaas yaa khasab ah Soomaaliya oo mid ah oo aan la faragelin oo aan loo imaanin oo shisheeye uu soo dhaxgelin Soomaaliya oo mid ah weey iyo Soomaaliya xora oo danaheeda iyadu ee gaari hadii ay nabadeedu waxay tahay inaan ka shaqeyno nabadda inaan raadino in aan qolooyinkan dhibka wada oo argagixisada ah inaan si guud aan uga dagaalno inaan la dagaalano qabiilistayaasha dadka qabyaaladda ku shaqeysta oo ummadda Soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah inaan ka shaqeyno midnimada Soomaaliya maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda ma aha waxaan ka hadlaynaa 30 waxaad qabateen iyo waxaad qabanaysaan waxay muuqanayaan 30 sano ka bacdi ma hadda waxaan sameeyno ee waxa dhaxli doona caruurteena iyo kuwa ay sii dhalaan marka mas'uuliyadeenu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareyno mustaqbalka caruurteena iyo mustaqbalkooda waxa xaqiiqo ah inayna soo wajaheen caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen weeraradii arxandarrada ahaa ee ay geysteen argagixisadu caqabadahaas waxaa ka mid ahaa abaaro iyo fatahaado isdaba jooga caqabadahaas waxaa ka mid ahaa isbarbaryac siyaasadeed oo aan soo aragnay intaasna waxba yaalaan Soomaaliya waa inay nabad hesho Soomaaliya waa inay mid tahay Soomaaliya waa inay madax bannaan tahay go'aanadeeda madax bannaanta haddii intaas la helo intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay sameynayaan abaarahana naftigoodu waxa weeye waa u diyaar garoobi karnaa maxaa yeelay dalkeenu dal biyo la'aan maaha biyuhu waa yimaadaan dad bay dhibaateeyaan ama badda aadaan ama beerahay baabi'iyaan marka haddii aan helno dowlad wanaagsan oo ka shaqaysa nabadaas waxa xaqiiqo ah
wakhtiga abaaraha ah wakhtiga roobka in la isu diyaarin karo wakhtiga abaaraha ah oo biyahaas laga khasaaro oo badda aada in biyo xireenno loo sameeyo oo markii abaar timaado aanan ceelasha la aadin ee biyaha ee diyaar noogu yihiin intaas oo mashaakil inta badan waxaan uga soo gudubnay wada shaqayn dulqaad iyo tanaasul dhexdeenna ah dowladdani idinku aad qaybta ka tihiin sheegay oo aan idhaahdo waa dowladda shacabka shacabkeenna waa siina waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala aragti duwanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka Soomaaliyeed ay heleen ma aydan qaybsamin cid idin qaybisa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mooshinka ma aydan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dowladeennii aan ka wada tirsanayn inay hesho xasilooni oo shacabka Soomaaliyeed aan u adeegno hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dowladdani waa dowladdii ugu horreysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday waxaana ku soconnaa cotton school inaan soo celinno sanadkan dhammaadkiisa waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dowladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa wacan idinkaa ka mas-uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin halka qof oo firimbiga haysta waa bixi kara hadduu rabo waa hal qof caruurta Soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna si kastaba ha ahaato weli waxaa inoo haray safar dheer yaa noo haray dowladii 3 sano iyo 10 sano meeshay rabto kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay safarka oo fursad siiyey ra'iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummadeenna u shaqayno oo aan shacabkeenna u shaqayno hala kala aragti duwanaado waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda Soomaaliyeed yaad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka firimbiga hayo waqti ma hayo waqtigii qadada raalli ahaada waqti qadada la joogaaye walaal sanadkiiba haddii mar 3 bilood mar haddii laisu yimaado sanadkiiba haddii laisu yimaado in lais dhegaystaa wanaagsan walaalayaal si aan u xaqiijinno marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah si aan u xaqiijinno higsigeenna qarannimo waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuq tan iyo intii aad doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isku hawlay inaan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna
golayaasha dowladda oo idinka kow aad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee Soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisaa inay noo suurta gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiigooda u huray siday ummadda Soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahayn niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka ah oo qorraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkooda iyo baahiyooyinkooda gaarka ah oo asaasiga ahaa ee ciidan ay helaan bil walba oo joogto ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda taas waxay qayb ka tahay tijaabooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeenna qalabka sida waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeenna waxaan leenahay guulaysta waxaad samayseen taariikh halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu ilaah yidhaahdo oo higsigeennana muxuu yahay Soomaaliya oo nabada Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto oo aanan ku shaqaynin shisheeye caqligiisa waxaan shaki ku jirin in dib u dhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan runtiina ay ahayd in mar hore la bilaabo laakiin waxaa alla mahadiisa ah inaan haddaan ku guulaysannay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka Soomaaliyeed oo tayo leh guulaha oo ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaan amniga magaalada Muqdisho inkastoo ay safar ka qodnayn weli tusaale ahaan 3 bilood ee ugu horeysay ee sanadkii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay 182 fal dambi halka 3 bilood ee ugu horeeyay ee sanadkii 2019 waxaa ka dhacay 74 fal dambi sanadkan aan ku jirno 3 bilood ee ugu horeeyay waxaa ka dhacay 24